ma isleedahay daawade waxa naftaada badbaadin karta saacad marka ay khatari soo wajahdo sidoo kale marna ma ka fikirtay in laptopka aad sidato aad kordhin karto xajmigiisa isla markaana aad yareyn karto adigoo ka dhigaya mid aad qaadan karto السلام عليكم داودي magacaygu waa Sakariya Faysal Cagaf waxaanu toddobaadkan qodobkaas iyo qodobo kale kaga hadli doonaa barnaamijkeena toddobaadka iyo tiknoolajiyada ee shirkadda Muraso qodobkeena koowaad waxaanu kaga hadli doonaa saacad badbaadisay nafta haweeney la rabay in la dilo sida bogga tiknoolajiyada ee Daily Mail lagu qoray toddobaadkii hore ayaa nin isku dayay inuu dilo gabadhiisii hore gabadhan oo ahayd 42 jir ka soo jeeda dalalka Aasiya ayaa ninkani waxa isku dayay inuu midi geliyo sidoo kalena waxa uu doonay inuu iyadoo nool aaso nasiib wanaagsan saacada Apple Series 8 ayaa noqotay tii badbaadisay nafteeda iyadoo ka garaacday markii gacmaha iyo lugaha laga xiray ciidanka booliska halkaasi ay ku soo gaadheen iyadoo nool qodobkeena labaad ee tiknoolajiyada waxaanu kaga hadli doonaa bogga Twitter-ka oo iibsaday bilyaneerka caanka ah ee Elon Musk sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen wakaaladda wararka ee CNN ayaa bogga Twitter-ka waxa khamiistii dhaweyd oo ahayd bishii 8 iibsaday bilyaneerka caanka ah Elon Musk haddaba waxa la isweydiinayaa maxaa laga filan karaa toddobaadka soo socda ama sanadada soo socda sida wararku sheegayaan waxa laga filan doonaa qodobo door ah ay ugu horeyso inuu kordhin doono shaqaalaha ka shaqeeya shirkadda Twitter sidoo kale waxa la sheegayaa inuu saameyn guud ku yeelan doono doorashada Mareykanka ka dhici doonta sanadada soo socda maadaama uu bogga Twitter-ka u furi doono madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo markii hore shirkadu ka xidhay boggiisii uu isticmaali jiray waxyaabaha uu hore u sheegay bilyaneerku sidoo kalena laga filanaya inuu xoojin doono xorriyadda aragti dhiibashada oo uu dhowr jeer ku dooday inuu noqon doono platform u furan qof kasta inuu wax ku qori karo sidoo doonana u hadli karo isagoo haba yaraatee ka baqahayn in laga xiro ama mashaakil kale ugu dambeynna waxa uu sheegay bilyaneerku inuu bogga Twitter-ka ka dhigi doono ama barta Twitter-ka ka dhigi doono meel ka xoogan ama ka weyn warbaahineed kana dhigi doono meel noqon karta in loo adeegsado waxyaabo badan oo noqda sida WeChat oo qofku lacag ka diri karo ama oo wax kale isticmaali karo qodobkeena saddexaad ee tiknoolajiyada iyo toddobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa shirkadda soo saarta kombiyuutarada ee Asus oo toddobaadkii dhaweyd barta suuqa ku soo bandhigtay laptop cusub oo aad looga hadalhayo suuqyada caalamka laptopkan oo ay shirkaddu ugu magac dartay Asus ZenBook Fold 17 laptopkan ayaa laptop cajiib ah kaas oo dunidu ay ku tartantay shirkadaha soo saara kombiyuutaradu laptopkan ayaa guud ahaantii screen touch ka samaysan ama muraayadiisu tahay OLED laptopkan ayaad awood u leedahay inaad xajmigiisa hadba aad bedeli karto waxaad ka dhigan kartaa 17.3 inch sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa mid la qaadi karo oo 12.5 laptopkan ayaa mid guud ahaantiiba muraayad ama screen touch aad isku laabi karto si fudud sidoo kalena aad u kala bixin karto si fudud adigoo ka dhigi kara xajmiga ayna soo sheeg qodobkeena ugu dambeeya toddobaadkan ee afraad ee tiknoolajiyada waxaynu kaga hadli doonaa kabaha elektarooniga ee sida fudud aad ugu socon karto ee ay soo saartay jaamacadda Carnegie Mellon University kabahan ayaa awood u leh inay 250% ama boqolkiiba 250 ay speedka xawaaraha qofka ay kordhinayaan kabahan oo magacooda la yiraahdo Moonwalker ayaa lagu talagalay in lagu ciyaaro ciyaarta kabaha shaagaga leh lagu cararo ee barafka ama orodka kabahaas oo lagu soo xayeysiiyay qiimo qayro caadi ah oo ay adag tahay inaad iibsato toddobaadkan barnaamijkeenu waa intaas waxaase halkani toddobaad kasta ka daawan doontaa barnaamijkeena toddobaadka iyo tiknoolajiyada ee shirkadda Muraso waxaanad kala socon kartaa boggayaga YouTube-ka iyo barta aan ku leenahay Facebook ee muraso.com